madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland guddoonka golaha baarlamaanka puntland xubnaha labada gole khiyaarta kale saxaafadda dhammaantiin asalaamu calaykum. waxaan aad iyo aada ugu mahadcelinayaa dhammaan soo dhaweynta diiwaangelinta iyo sida wanaagsan soo dhaweyseen. waxaan ilaahay sidoo kale uga mahadcelinayaa raxmadda iyo nabadgelyada ilaahay ku wanaagsan deegaanada puntland iyo deegaanada kale soomaaliyeedba. waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa sii horumariyo dalka quruxdiisa waa roob. markaan soo gelinaa tasawiraan ka gelinaa dhulka soo green weyna iyo biyaha meelaha yaalla marka ilaahay musliman lagu hayo aafada ay wataan awal waa laga diyaargaroobay dadka dabcan marka waa isku qaybinaa safar dheer oo china iyo naalaadka iyo ethiopia isu soo maray waxyaabo badan oo runtii aan rajaynayo inay horumarka ay qayb ka qaadan kasoo wadamarnay bixin ballaaran ayaan insha allah dowlada dowladda shacabkaba waxyaabo badan oo runtii aan diilana way ii muuqataa. waxaan rajaynaynaa ilaa elinkiis joogan airline inay waktigan fogeyn meelaha puntland cuduradaha ka haystay waxaa ka mid ahaa dhinacyada isu socodka ama badda ama cirka ama dekedeedu waa ogtihiin sida bedel jidkii wada arkaan oo 40 sano kadib waa sii dhulka safarada dhulka ka qabsan waad ogtihiin oo dowlad international oo isku xiran waxyaabaha runtii xukuumad ahaan aan xooga saaraya waxaa ka mid annaguna aan u furnaan adduunka loo furnaa sida geli nolosha bini aadamka xilkiisa loo helo insha allah qaadiyo jidka meelihii wax ka gaaray si degdeg wax ugu qabsooni doonaan oo rajaynayna waxyaabaha badan waqti ku habboon ayaan ka waqtin doonaa iyo soo dhaweynta maalin jimcaha oo nasasho ahayd insha allah ilaas ayaa kusoo gabagabayn doonaa ilaahayna soo socota oo DMI